السلام عليكم دمانتي وسلام قلب وناكسن جمعة وناكسن جمعة مبارك أنت الدعاء ومن لا أقبل مرك أوه رزورتا إنا وضن كانوا دعنا إن شاء الله الحسوسنا ولا حسوسنا وفهمتين وضن كي واجه وضن مضان يروح واقع يمد معي يقول عين كل شيء كينا يقول عين مركان ماشي مigration كوليجا قابلة تجي أو نيم هي الصومالي يقال هي استعانة كصومالي ويقال مركز وحيرين Soomaaliye toosoo isku tiirsadayey markaasa hadbakiina taag daraney taageera weligiiney af soomaaliga waxoogaa jajabsanaya migration marka insha allah ilaahay maxay wadanka nabad allaha nooga dhigo horta marka koowaad marka labaad galabta waxaa wiilashana waa galabta lala dardaarmaa waxaa lagula dardaarmaya gabdhahaba labadiina waa isku jirteen waxaa lagu dardaarmo horta gabar markaad guursanaysid waa inaad diinku guursataa gabadhana sidoo kale waa inaa ninku diin leeyahay muhiim horta waxaa labadan qof inuu qofkood diin leeyahay ya afarba gabdhaha waa lagu guursa wali maalaha inay maal leedahay wali jamaalaha inay qurux leedahay wali nasabiha inay cid fiican ka dhalato heer ah wali diinaha inay diin leedahay marka waxaa rasuulku wuxuu ya darab ya daaka war gacantaada ha carra dhacdee ay diini saaxiib midda diinta u saaxiibka lama qaadantii quruxda u saaxiibkeed lama qaadantii maalka u saaxiibkeed lama qaadan midii nasabka u saaxiibka ahayd marka waxyaalahaas oo dhan carbaha xataa way ka jiraan Soomaaliya kaligeed kama jiraan marka maxaa la qaatay tii diina ya haddaad ikhlaaftid xataa inaad faqirtid oo rasuulku ku soo xijiyay marka gabadha diinta u saaxiibka wax ka fiican maaha maxaa yeelay gabadhi way isfahmaysiin mideeda kale hadda sanadyadan waxaa la imaada furinkii yaa batay muhiim horta reerku inay isfahmaan oo qofkan markuu qofka kale xanaaqsan yahay inuu qofka kale uu dejiyo muhiim ah qofkii xanaaqsan markii hadalkii qofka kale uu ku sii diro muxuu noqonaa uu sii xanaaqa marka hadduu iska dhaafo shib ka dhaho xataa qofkii naftigiisa gadaal uu ka qoomameyma oo kale oo maxay qofkii xanaaqsan haddii laga aamuso oo hadalka jawaabta loo jawaabin wuxuu keenay inuu qoomameeyo iska daayo yani waxay uu ka xanaaqayo joojiyo xanaaqa tirada badnaa isdajiyo kabacdi asaga oo maxay laakiin qofkii xanaaqsan inuu qofka kale uu asagana xanaaqo ya waa dhib marka waxaan kala talaa gabdhaha walaalaha iyo wiilasha walaalaha in la isu samro horta reerku hadday isu samreen ma dhisnaanayo muhiimna inay isfahmaan muhiima oo la isfahmo oo reerka isfaham lagu dhiso marka hore cilada aad leedahay qof walba qofka kale u sheegto maxay ahayd mideeda kale gabdhuhu markay yaryar yihiin oo aad u yaryar yihiin kama fakaraanba ninba kuma maleeyaanba marka maxay ahayd ninba inaad tahay in xaq lagu leeyahay waxaas ma oga gabdhuhu markay yaryar yihiin laakiin gabadhu markay 20 sano gaarto wax walba way fahmi laakiin gabar hadday mar 20 sano ka yar tahay kama dhaadhacsan in xaq lagu leeyahay inaan xaq lagu lahayn marka wiilashana sabarka ha badiyaan samarka waa inay badiyaan reerkooda dhaqataan oo maxay ahayd wada tashi sameeyaan waxaan idin sheegaa hadda wada tashi sameeyeen si samartiin marka hore la wada sheekay la is dhiso la yiraahdo warooy anigu intaasaan leeyahay adiga intee leedahay oo been la isu sheegin oo guurka waa lagu dhisin been oo hagaaga guurkaas insha Allah waxaan leeyahay familiyada inay heshiiska ku daraan waxyaalaha qof walba ceebaha ay leedahay haddaan ceebaha ay leedahay la isu sheegin oo ceebtan la isu sheegin reerku ma dhisnaanayo laakiin qof walba waa ceebta intay leedahay waa inay qofka kale u sheegto hadduu rabto ha ku qaato hadduu rabo ha ku diido wuu ku diidi karaa wuu ku qaadan karaa laakiin ka helitaankaaga haddaad reerka ku dhistid oo burbura kaas ma dhisnaanayo ilaa mid dhifa maahan oo ilaahay u gargaaray laakiin waa inaad ku dhistiin qof walba ceeb leeyahay qof walba tiraade walaani intaan leeyahay adiga intee leedahay maxaa diidaa maxaa sayeesha maxaa jecesha maxaa na jeclayn is weydiyo taas muhiim reerkaas marka weligiis ma burburaay maxaa yeelay tiirarku ku dhismi la waagi horaaba laga soo heshiiyay inta uu soo dhismin marka waxaan leedin leeyahay insha Allah adkaysta gabdhaha yarana waxaan leeyahay guurka ku degdeginina haddaad ku degdegtiina waa inaad marka hore si soo dhistiin وحق أخلاقيا يحق دينيا إسكسو لستين وعقلي وصاحب نقطة غير هذا دستين غير كين وزين كبربن ولو علم تكوتي ماذا كنت لسان يسان وهاي كانوا
kan oo lucil warkuu sheegtay aad reerkaa ku dudumisid waa dhib adoo gabar ahaa shalay ninkaan jecleen haddana ilmo awlaad meesha imaatay waa dhib in awlaada marka awlaada reerka lagu burburiyo awlaada waa muhiim inaad awlaadan behelaysiin ma ogidin awlaadii ku dayacanta reerku hadduu suula awlaadii dhexda ku dhacdo oo ku burburo wiilashii gabdhahaba hadday awlaad meesha u taalo inuusan reerkooda ka burburinaan taasaan u rajeynaa insha allah khayr iyo khayraad ayaa in lagala wanaagsan jimco wanaagsan wadankaad loo duceeya allahuma salli calaa saliga rasuulka alla badiyo wadanka ilaahay nabad inuu nooga dhigo insha allah khayr iyo khayraad waxaa noo dardaarnaa guul iyo gobonimo insha allah